guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista ee Hargeysa ayaa shacabka reer Hargeysa waxay ugu digeen urur diimeedyo ay sheegeen in lagaga dhawaaqay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Khalid Yusuf Xasan Fantastic. shirjiraayadu ay magaalada Hargeysa si wada jir ugu qabteen guddida wanaag farista iyo xumaan reebista ee ka howlgala Somaliland oo maanta qaar kamid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxay ka hadleen urur maalmihii u dambeeyay lagaga dhawaaqay magaalada Hargeysa oo lagu magacaabo ururka Saacidun bil Xaq ururkaasi oo lagaga dhawaaqay markaasi magaalada Hargeysa ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha guddida wanaag farista iyo xumaan reebista ee magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan محمد عبد الله waxaanu gudoomiyaha wanaag farista iyo xumaan reebistu ka sheekeeyay taariikhdii la aasaasay ururkan iyo waxyaabaha uu hirgali waayay waxaanu taabtay waxay aaminsan yihiin iyo waxay ka aaminsan yihiin dadka muslimka ah hayeeshee gudoomiyuhu waxa uu sheegay inaan laga dhageysan waxa ay ka hadlayaan waxaanu xukuumadda ugu baaqay in talaabo sharci ay ka qaado ururkaasi gudoomiyaha oo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlaya waxa uu yiri علماءنا أيام بيننا جزاهم الله خيرا إني مدة دولة إني بيانيا يسيب ودجيرة واقع قاتان وقعدان وركني وحلا أساسي أما الصومالية ويميت مركز الصومالية إلى هيد كون يستقال بقول سيدة دواتك أيام كاني وحنا كاني لمن أرضيكها جامعة مكجوجي وحق الصومالية لها ودادها وحنا وضعهن أرضي شبحان معلم iyagu hanaga toqronaadaan oo odayaal ay noocaadaan nimanka noocaasa markay soo ictinaaqeen ay soo qaateen madhabtaas wadaba madhabtu waa takfiir weey dadkii ugu horeeyay ee keena in wax la gaaleeyo mujtamaca Soomaaliyeed in la gaaleeyo dadkii keenay ayay ahaayeen markaan eegay oo aan dhageystay oo sayda aan galay rag badan oo aan garanayo magacyadooda iga soo baxay meesha aan garanayo ومركي هراء ضيالها عن قرني لكن إني مركي مبدأ قاتين عن كوجا عن كجتك إنك بيان كجديدين يسوون يسمعون وقان حسن عبد الله ربله هدي اللي كورون يهي أفرت هالك مقطع واقع سومال نبان سوون يسون قاننا سدح لك الاسم قان لكن وكوجا وكعداتي كو بنتولان نبان كأقاضي سوون أرضي كأها مجال مكة كأها وفكرة سوقاتي ودلك لا يمد أفرتن كاسانو إلى هايان وانو قرصونين ما يقرصونين ددك يقان حركاتكم واللجوء وإن التكفير هايان وليبا وحنيدين الشيء نكن هذا الشيكتين مصطفى اللي هي جوجو ماشى اللي مصر كقدر واقعي نكها السجعة ورجس حبس هذا مصر كسو اعتناقي كسو قاطي تكفير كسو قاطي بوها لين نفكر وها magaalada makuu yimid waa lagu soo dhaweeyay macallin baa laga dhigay jaamacadda rag Soomaaliyeed oo ka tirsan ayuu helay raggii baa soo qaaday muqdisho ay keeneen 1970kii raggii loo keenay baan kamid ahaa raggii diiday baan kamid ahaa markay noo keeneen fikrad faasida inay tahay oo diinta asal ku lahayn oo khilaafsan aqeedada saxiixa ah ee tii Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam uu nooga tagay iyo saxaabada salaf hadi umma ay nooga tageen ahlu sunna wal jamaa ay leedahay saxda inuu diidan yahay barnaamijku marka walaalayaal waxaan idinka digaya oo halkan ka cadeynayna nimanka iyaga halkan afar bay ku joogaan afartana waa la yaqaan oo nin kamid ah jaamacadaha macallimiinka ah nin kamid ah waa nin tijaar ninna meel roodida lagu sameeyo ka shaqeeya ninka kale injineerka aanu garan maayo waana dhageystay bayaankoodana wali waan dhageysanaya nimanka waxaan ilaahay la hortagay oo dadka uga digaya oo u sheegaya inaysan ku kalsoomin inay yihiin niman takfiira in la iska ilaasho in laga ilaasho waxbarashada in ma taqaan laga ilaasho in wax laga qaato waxna ka qaadanayna waxna ka dhageysanayna iskana ilaasha fikradoodan fikrad faasida way sharciga islaamka aqeedatan wa shariicatan wa akhlaaqan malaka ka taala ma jiro wabimaay anuu kala saaray waxaan leeyahay war arrinkan uu idin yaala dadkan ilaahay maanta taagayaan anuu intaan ka hadli karo waan ka hadlaya taariikhdoodana waxaan rabaa inaan website-ka inaan soo dhigo social media in alla intaan ka aqaano iyo waxa ay yihiin inaan soo bandhigo insha Allah ta'ala saasaan rajeynaya hal laga digtoonaado